Shil diyaaradeed ayaa maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay ku burburtay diyaarad sida dad shacab ahaa sida ay muujinayaan xog iyo sawirro laga helay halkaasi. Sida ay xaqiijiyeen ilawareedyo lagu kalsoon yahay, waxaa shilka uu ka dhashay mid ka mid ah diyaaradaha shirkadda Juba Airways, taas oo la soo wariyey in ay burburtay gebi ahaan. Wararka ayaa intaasi ku daraya in diyaaraddu ay shilka gashay xilli ay ka soo cagadhiganaysay dhabbaha garoonka, waxaana ka dhashay dab xooggan oo markii dambe lagu guulaystay in la damiyo balse burburiyey diyaaradda. Diyaaradda ayaa samaysay duulimaad gudaha dalka ah, waxayna dad shacab aha oo tiradooda lagu sheegay 30 qof ay ka soo qaaday magaalada Baydhabo. Waxaa la soo badbaadiyey dhammaan rakaabka la socday diyaaradda oo nooceedu ahaa Fokker 50, mana jiro khasaare dhaafsiisan burburka diyaaradda shirkadda Juba Airways sida aan xogta ku helnay. Arrintan ayaa noqonaysa arrin ugub ah oo dadka Soomaaliya ku nool ku cusub. Horey loogama baranin inay diyaaradda ku burburto ama ay ku qaraxdo meel ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya. Dadka ganacsatada ah ayaa inta badan kuwa ku safra diyaaradaha markii laga imaado mas'uuliyiinta ama dawladda, halka ay dadka kale ay u kala gooshaan dalka gudihiisa iyaga oo raacaya ama isticmaalaya gawaarida yaryarka ama waaweynka ee u kala goosha gudaha dalka. Tani ayaa cabsi ku noqon doonta dadka shacabka ee isticmaali jiray waayadan dambe inay diyaarad u kala safraan dalka gudihiisa. Diyaaradaha ay dadku isticmaalaan xilliyada waqti roobeedyada ee ay gaariyaashu ka fariistaan wadooyinka dalka gudihiisa ayaa kuwa dhiiqa oo markuu roob imaado ayna gaariyaashu iska kala safri karin magaalooyinka isku dhow ee dariska taasi ayaa ku qasbi doonta in dadku markasta ay diyaarad isticmaalaan ama ay raacaan.